Nin ayaa dunidoo dhan mugdi ka dhacay. Daruuraha cirka kumaysan jirin. Jiguhu waxay ahaayeen kuwo aamusan. Dad badan ayaa cirka eegaya waxayna isdhahayeen dayaxa maxaa ku dhacay. Fadlan intaan sheekadan sii guda gelin dayax madoobaadka ku saabsan, haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir gambaleelkana furo. Like-na noo saar fiidiyogan. Haddaba aan sii guda galna sheekadeena dayaxa quruxda badnaa ee habeen walba ifin jiray dunidan oo dhan wuxuu si tartiib u bilowday inuu noqdo ciiro, dabadeedna uu noqdo madow. Dadka qaar waxay u maleeyaan inuu dhammaaday cimrigii dunidan oo dhan. Qaarna waxa ay oranayaan dunidan musiibo weyn ayaa ku soo socota. Laakiin sheekada dhabta ah waxay ahayd mid kale. Waxaa la sheegaa dayaxu inuu yahay indhaha dunida oo kale. Marka uu madoobaadana ay ka dhigan tahay in la xasuusinayo dadka qalalaadka gali jiray inuu qalbiyadooda madow noqdeen dadka. Sidaasoo kale waxaa jiray dadyo hore oo dhihi jiray markuu dayaxu mugdi noqdo waa xasuusin dadka la xasuusinayo in qalbiyadooda mugdi ay noqdeen oo la xasuusinayo in qalbiyadooda iftiin ay u baahan yihiin. Dayaxu markuu madoobaaday carruurta ayaa bilaabeen inay cabsi dareemaan. Dadka waaweynna waxa ay bilaabeen inay masaajidada iskugu tagaan oo ay salaad tukadaan. Laakiin si kedis ayaa isku bedelay dayaxa iftiinkiisii wuxuuna isku bedelay mid casaan ah oo u eg dhiigga, taasoo adduunka dhan ka dhigtay midab kale. Taasina waa fariin kale. Fariintan mar waliba way soo noqnoqotaa. laakiin dadku waa in ay qalbiyadooda nadiifiyaan si aysan u lumin iftiinka nolosha. Rabbi sharax li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani. Haddaba ducadaas yartaa ka faa'iideysta aan sheekadana sii wadano. Ugu dambeyn dayaxu markuu ku soo laabtay iftiinkiisa quruxda badan, dadka ayaa dareemeen nafis iyo farxad. Waxayna ogaadeen dhacdadaas inaysan ahayn wax cajiib oo samada ka dhacay, balse ay tahay xasuusin la xasuusinayo in qalbiyadooda madow noqdeen oo dadka ay dulmiga ku wadaan. Sheekadina maanta ee ku saabsanay dayax madoobaadka intaas ayay ku egtahay. Halka aad nagala socotaana waa Taakuur Technology. Anigaan ka sheekeynayana waa Cabdikariim Bashiir. Waxaan idin leeyahay intaas kadib sidaas iyo nabadgelyo.